الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي وأسلم على النبي الرحمة والملحمة أحسن التسليم وأزكاها. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. إلهي سبحانه وتعالى أدومديس مركو أبوري wuxuu ka doortay dadka ugu fiican wuxuu ka dhigay anbiyo iyo rusul oo ilaahay wuxuu leeyahay Allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min an-nas. ilaahay malaa'ikta wuxuu ka doortaa dad u adeegsado iyo bani aadankaba. ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiyada fadligooda iyo darajadooda kor ayuu u qaaday oo ilaahay wuxuu yiri ulaa'ika alladhina hada Allah. ilaahay markuu soo tiriyay anbiyada 25 markuu soo tiriyay ka badan wuxuu yiri kuwaas waa hanuuninay idinkana hanuunkooda ku dayda. anbiyada ilaahay kulligooda waa isku darajo cid darajo ka nusqaamin karta male oo ilaahay wuxuu leeyahay kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. rusulada ilaahay in la kala qaado fadligooda ma aha oo nabi maxamed jeclaanaysa oo muusa jeclaanaysa oo shucayb jeclaanaysa kulli hal jecel ku qaadaysa. waxanaaqina markaan anbiyada wax laga sheego kulligooda khaasatan markii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wax laga sheego maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam waa anbiyada midka ugu fiican. ilaahi subhanahu wa ta'ala anbiyadii hore waa iska soo dabadiri jiray nabi markuu dhinto nabi kale soo diri jiray bedelkiisa. nabi sallallahu alayhi wasallam wanaagiisii waxa ku cadeenayo gadaashiisii nabi kale ma la soo dirin. risaaladiisa waa risaalada ugu dambaysa bani aadanka inuu ku dhaqmo laga rabo. waa qofka ugu horeeya jannada laga furaayo albaabka gargaraaci doono dadkoo dhan asagay ku daba feeli doonaan albaabku gargaraaci doona. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ina aadamo dhan ana ugu fiican faana igama aha. nabiga saas u fadli badan ayuu hadana wuxuu diiday in anbiyada la kala saaro oo uu dhaho nabi hebela fiican in nabi hebela fiican. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la tukhayyiru bayna al-anbiya. anbiyada ilaahay ha kala saarina waliba aniga ha iga dhax saarino ha iga dhigina qofka ugu fiican ha iga dhigina isagoo ah. nabi sallallahu alayhi wasallam maalin buu aad u carooday nin yahuudi ah in saxaabada kamid ahaa murmeen. ninkii yahuudiga ahaa Muuse ayuu amaanay. markuu Muuse amaanay ninkii saxaabiga ahaa ninkii yahuudiga u dharbaaxay. Muuse maxaad u amaanaysaa nabi maxamed ka fiican. ninkii yahuudiga ahaa uu soo baxay nabi sallallahu alayhi wasallam ayuu u dacwooday wuxuu yiri ninkaan arintaas isku qabsanay waana i dharbaaxay. nabi sallallahu alayhi wasallam wuu xanaaqay maxaa u dharbaaxday uu yiri la tufaddilu bayna anbiya'i illahi wa illahi. anbiyada ilaahay kala saarina kulligooda waa isku mid. maxaa yeelay wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahay markii buunka loo yeeriyo oo cirkii dhulka la isku soo baxo aniga waxaan noqonaa uu rasuul alayhi wasallam qofka ugu horeeya qabrigiisa la dilaaciyo oo aan ka soo baxo. markaan soo baxo waxaan arkaa uu yiri Muuse alayhi salaam oo arshiga ilaahay ku dhagan ma uu dhaa horteedii maal xisaabiyay mis hadda la xisaabin doonaa. nabi Yunus alayhi salaam Yunus ibn Matta nabi ka fiican ma jiro ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam asagoo anbiyada ugu fiican hadda nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay Yunus iga fiican. nabiga hoos uu isku dhigi jiray korm isku qaadi jirin. rasuulada waxa loo soo diray in la adeeco ilaahi subhanahu wa ta'ala. nabigiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam sharaf gaar ayuu siiyay. in ka badan 25 meel oo quraanka ah ilaahay iyo rasuulkiisii lisku wada sheegay oo ilaahay wuxuu leeyahay atii'u allaha wa rasuulahu da quraanku maqasho waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 25 meel ka badan ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga iyo nabigiisa hal meel isku sheegay. wuxuu isku xiriiriyay taacadiisa iyo daacada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay wuxuu leeyahay laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. ilaahay wuxuu ku manaystay dadka markuu soo diray dad ay nabi ayaga kamid ah. malag ma loo soo dirin jinni ma loo soo dirin qof bani aadan aan fahmi karana loo soo diray. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuuna edbiyay aadaabtii aan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kula dhaqmi lahayn ayuu noo sheegay oo waxa kamid ah la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuulihi. ilaahay rasuulkiisa wax kale ha ka hormarinina. nabi sallallahu alayhi wasallam oo
agtaada fadhiya codkaaga kor ha u qaadin aaliyiri saxaabada waxa la mid ah markii nabi sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa lagu sheegaayo aad iskibriso aad isweyneysiiso oo nabiga aadan ku salinin nabi sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa inta lagu haayaa adigana sheeko inaad hayso macsi ayaad ku jirtaa dambi weyn aad ku jirtaa oo ilaahay wuxuu leeyahay saasda sameeysan acmaashiin dhan way baaba'ayaan kulli waxa sameeysan إلهي سبحانه وتعالى وحو أماني مصحابدي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إلهي محير كوى النبي مركي لجوغان عدكو هوس ودقايو كوى سحيليهن على كعبسي دنبداف بالصين يا إلهي محير سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاوعيسين سيدنك اسكوعيسين وكلها اسكوعنا يا محمد مديه كرتيت مكوعي كرتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا يا أيها النبي محايل الله سبحانه وتعالى أصغب يا محمد مكوعين قرآن الكريم كأنبياء إلهي مركي إلهي سبحانه وتعالى وذوعي مقعد كياري يا عيسى ويري يا موسى ويري يا داود كل مقعد كياري لكن النبي صلى الله عليه وسلم مركي لسوقاري يا محمد لما به النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي آليري يا أيها الرسول إلهي سبحانه وتعالى شرفت النبي محمد مرة كرو قاضي قال نجاس أو بري قب أنا يوحمك قاضي كرب عايديسا أي أنا قال نلو امتحان ما هي قال حمو كذا أنسك دخينين النبي صلى الله عليه وسلم هدول لوا كان جرعايو وحمك قاضي كرو لكن أنا قال نلو امتحان هذا إسك فريسانينو هذا وحك دهينو إمام مالك وحيري ومضى إنه هرتو مبعها ويري مركي نبي جود العايو لا بقاء لأمة بعد شتم نبيها أولاي ما حوجوجسين أولاي نبي جينا العايي وحا عنسين وحا عبسين وسيحني سمية أولاي إمام مالك النبي صلى الله عليه وسلم وقفك أوهري الباب جنة لقى فرايو إلهي سبحانه وتعالى هو أماني وحيري ما ضل صاحبكم وما غوى مر من قف قنصنا معها وحو أمانة عرب كيس وحو كل واقعه وما ينطق عن الهوى يري نبي كل واقعه وحبين وحو أمانة قفك وحي لو سو ديبي أو جبريل محوري الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا وحبري متحق بدن جبريل وحبري إلهي وحو أمانة إندهيسا ما زاغ البصر وما طغى أوري نبي محمد إندهيسا ما لا يحنن إلهي وحو أمانة لابتيسا وحو يري ألم نشرح لك صدرك لابت هذا سو معنا كوفذنين إلهي هدنا وحو أمانة دبيع ديسا أوردن وحو يري وإنك لعلى خلق عظيم خفك بني آدم كأمرك الأمانة أيو waxaa laga yaabaa hal dabeecad in lagu amaano bis qofka duugeesi yahay waxaa laga yaabaa in geesinimadkiisa la sheego hadii uu ahaa qof saxay waxaa laga yaabaa saxaynimadiisa kaliya in la sheego laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhinac walba laga sheegay xitaa waxaa lagu sheegay markii musqusha uu galay qaabka uu galay lagu sheegay sallallahu alayhi wasallam lugta uu hormarin jiray lugta uu soo bixin jiray musqusha markuu galo gacanta wax ku dhaqan jiray lagu sheegay muxuu cuni jiray ma dhargi jiray muxuu ku seexan jiray والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم كو نبي إلهي لبايو عذاب حنون بدن إليهن النبي صلى الله عليه وسلم عاي هاد أغم هرينين أصدقوا نولا لعايي وحال يري ومجنون وواليه وساحر وسحرين هي وبيناله إلهي محور سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أمر كل جسي قاضو مشركين تكجيسو إنا كفيناك المستهزئين كو أدكو جزايو أنا قبنينو هذا هو شاذ قبصو النبي صلى الله عليه وسلم وإن أنك جعلنا نفسدنا حدي نفسد هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كهر مريني المجعلي عمر يا رسول الله وكو جعلها هاي لكن نفسدي هذا ما كجعلي مركاسه النبي صلى الله عليه وسلم عمر ولم يجعلان نويري مركاسه وحير عمر لا أنت أحب إلي من نفسي رسول الله وحير هذا نفسدي هذا وان كجعلها هاي النبي وحير صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر وهذا جعل ربط أشياء وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحير إن الله وملائكته يصلون على النبي
ilaahay iyo malaa'igtiisa waxay amaanaan nabigii amaanaan adiga amaan kaaraw markii waa lagu imtixaamaa alla jalla jalaaluhu nabigiisa mar hore amaanay ilaahay amar wuxuu ku siiyay yaa ayyuhalladhiina aamanuu sallu alayhi wa sallimu tasliima amar waay qofkii nabiga ku salin waay waa dambiile malag ayaa joogo nabi sallallahu alayhi wasallam qabrigiisa qof walbo ku saliyo u sheegayo nabi allah waxa kugu saliyay hebel iyo hebel iyo hebel oo xamar weyn degan oo xamar jab degan oo caalasha degan waa loo sheegaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuuna ku farxaya hadaadan ku salinin bakhil baa tahay nabiga ku saliya ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa wuxuu siiyay asxaab wanaagsan oo difaacday nafsadooda ka hormariyay fiir tusaalooyinka aan qaadan doono علي الويدي وحال النبي صلى الله عليه وسلم سأجعلان جرتين علي وحيري كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضمع نبي وحان كجعلان ويري المهية هويوين كينا حاسس كينا بيها قبو خفك أمر سيدو أقباهي هاي نبي كجعلان ويري dagaalka Uhud markuu dhacay nabi sallallahu alayhi wasallam dhibaato badan soo gaartay asaga waa dhaawacmay saxaabadiisa 70 qof ka shahiiday dhibaato badan dhacday nabi sallallahu alayhi wasallam dhiigiisa ma uusan fiirinin wuxuu ku yiri saxaabada Sa'ad ibn Rabi'a iga maqan yaa ii soo fiirinaayo waa nin kamid ah ansaart oo haliyay ahaa ganacsada ahaa maalkiisa ilaahay dirs ku bixin jiray ninkaas iga maqan ii soo raadiya ninba wuxuu rasuul allah ana ku soo fiirinaayo nay wuxuu bax ii soo fiiri inuu nool yahay inuu dhintay dagaalku ku jiray ninkiina soo baxay Sa'd ibn Rabi'a oo imaaday oo aad daawac u ah markaasuu wuxuu yiri yaa Sa'dow إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر هل أنت بالأحياء أم بالأموات سعد النبي كان صادر وحيري موحد منوش هاي مسنا دمتين أنكو صوفيريو مركز وحيري يا سعد إلهي هسو أمري رسولك هسو إسو أمري محن سميا سعد وحيري النبي صلى الله عليه وسلم وحد هذا إن سعدا في الأموات سعد واجيريو ذي ومن ولده محل نفتك سيد حسي وحد هذا النبي قال جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته أمديسا الله كأوال مريو خيرك ونسو جارسيي الله كأوال مريو أنصارنا وحد هذا قبيل كيغا وحد هذا والله إلهي أكتيسا عذر دار مئذين يالو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قرافة لجارسيو هدي النبي لسو جارو أني وحور هدان والله لها واب وتجي لها واب دفاع لها أني هذا واد من آيه دد كيغا وحد جارسيسا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحجر له لجارسيو إلهي أكتيسا عذر دار مئذين يالو ود أنت سحابي ماشي كود أنتي النبي صلى الله عليه وسلم والله sheegay arintii aad ugu xumaaday maalmaha kamid nabi sallallahu alayhi wasallam asagoo soo maraayo meel uu fadhiyo Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo munaafiqiinta kaabahooda ah ay munaafiqiin kale meesha ay fadhiyaan ayaa Abdullah wuxuu yiri imaamadiisu san ka saartay markaasuu wuxuu yiri Muhammadow naga dheerow dameerka asaaran tahay urkiisana dhibaaye nabigu caayay sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Hudhafa nabiga la socday wuxuu yiri dameerka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ka caraf badan dameerka nabiga ka caraf badan af mu ku ekeeyay maya inta u tagay ayuu halkaas dakhar ku dhuftay dhiigiisu daadiyay wuuna ka tagay nabi sallallahu alayhi wasallam hadal ma dhihin ابن عباس wuxuu soo wariyay wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam xiligiisa waxa jiri jiray nin saxaabi oo indhool ah naagu qabi jiray naagtiisa waxay u dhashay laba wiil aad u qurux badan wiilashiisa way daryeeli jirtay asagana way daryeeli jirtay nin indhoola ayuu ahaa aad xaaskiisa isaga ugu fiicneed laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa caan jirtay dibka ay qabtaa waxay tahay nabiga caan jirtay maalin walba waa uu digi jiray wuxuu dhihi jiray walaalahay nabiga ha caaynin nabiga faraha ka qaad wax kale oo la caaya ka badan nabiga ha caaynin si uu caayineysay maalmaha kamid ah asagoo soo baxay tan ay caaysay
habeenkii markii la seexday mindiyuu soo qaatay indhool uu ahaa wax ma arkaayo markay seexatay caloosheedu raadiyay caloosha uu ka saaray waa ku fariistay mindidii dhabarkeedu ka soo bixiyay waa dilay xaaskiisa waaye waagi markuu bariyay naag dhimatay la arkay ninkan indhool waay ma laga shakinaayo nabi sallallahu alayhi wasallam loo sheegay nabigu wuxuu soo dhex istaagay dadka wuxuu yiri xaqa idinku leeyahay idinku dhaariyay naagtaas yaa dilay ninka dilay ha soo baxo ninkii yaa soo istaagay asagoo jaraynaya cabsanaayo wuxuu rasuul allah xaaskeygi ahayd laba wiil ee dhashay qurux badan laakiin wuxuu rasuul allah adeeg ku caan jirtay intaasan ku kiraahsaday nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alashhadu fa inna damaha hadar wuxuu kulligiin marxaati ka ahaada qoftaas dhimatay dhiigeeda waxa ka soo qaadin dameer baqtiyay cid wax ku heysata male waa bixi kartaa nabi sallallahu alayhi wasallam muxuu sameeyay nabigu difaac sallallahu alayhi wasallam nabiga ma dhihin adab dara sameysay naagtaada maxaa u dishay ma dhihin nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka caayo waa la dilayaa muslim ahaada gaal ha ahaado gacantaada meeshay ka gaartaa ku dilaysaa ma la sugaysid xitaa xukun iyo ma la sugaysid muslimiinta qaara nabiga ku jaasjaasay sallallahu alayhi wasallam iska ilaaliya naag yahuudiyad ah nabiga caan jirtay nin saxaabiya maqlay wuu u dhuuntay gurigeeda u galay ceejiyo qabtay ilaa ay ka dhimato waa ceejinay markay dhimatay gurigeedu ka soo baxay naag kala la maqlay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam caynayso wuxuu u diray Khalid ibn al-Walid wuxuu Khalid oo naagtaas meel iga soo saar Khalid waa u imaaday wuxuu u imaaday ayadoo ilmaheeda naas siinays ilmihii ka qaaday inuu ka fariisay ayadana madaxu qaaday maxaa yeelay waxay soo xad aan la soo gaari karin soo gaartay nabi sallallahu alayhi wasallam xuduud aan laga dheeli karin waay qofkii soo gaaro waa maqan yahay Abdurrahman bin Auf wuxuu leeyahay dagaalka Badr anagoo cabsanayno gaaladii kun anagoo 300 ah anagoo cabsanayno waxaan leenahay meesha maxaa in ka horeeyo wuxuu dhinaceega hoos la iga jiiday markaan fiiriyay anug yar hoosteeda taagan adeero kaale waxaan ku weydiinaa way dhahay waa isku gaabiyay maxaa rabtaa aan dhahay wuxuu yiri adeero Abu Jahl ii tilmaam Abu Jahl ii tilmaam aawi Abu Jahl waa nin laba lafood oo loo dhawaan karin maxaa ka rabtaa Abu Jahl waxa maqlay oo Abu Jahl nabiga inuu caan jiray oo dhibi jiray wallahi wuxuu dhahay maanta ani asaga hal qof lee maqan waa anug yar laakiin waxa lagu barbaariyay jaceelka nabiga sallallahu alayhi wasallam anagoo nabigeena la caayay gaal faransiis soo caayay aan wili muuqaalka nabiga uma eg waan ka xishoonayna xitaa nabiga isku ekaysiino nabi ama oo ekaane aqwaan muslimiin ama lagu maleeyaa ittixaad ama lagu maleeyaa ama lagu xiraa hadii waxir la garka muuqdo makiinad iyo sakiinal daw taagantahay maanta way maalinta uu mudan nabi sallallahu alayhi wasallam in la nooleeyo sunnadiis oo gaalada ay argagaxaan maanta way maalinta ay mudan tahay nabi sallallahu alayhi wasallam magaciisa in kor loo qaado ogow mar walbo nabi sallallahu alayhi wasallam la caayo imtixaan waayba gaalo fara badan soo islaamtaba markii nabiga la caayo waxay leeyihiin waxaano khalqi banaan baxayaan maxay u banaan baxooyin qof mar hore dhintay ma had u banaan baxooyin ninkan sharaf yar ma balahe waa islaameena markaas waxa maqlay malaayiin wiil oo la dhalay oo loo bixiyay Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaan idin kula talinayaa qof walba uur loo leeyahay Allah ku barakeeyo uurkaaga haduu wiil ku dhasho Muhammad u bixi gaalada argagaxaan Abdurrahman bin Auf sayeli wuxuu dhahay Abu Jahl sayeli waa dilaa uu dhahay Abdurrahman bin Auf wuxuu yiri asaga iska dhaafay aniga Abu Jahl mu bareeri karo dhahay anoo kan la yaaban mid asaga ka yar dhinacii kala taagan adeero kaali kaas iyo maqlinay Abu Jahl ii tilmaam kaliya inaan dilaan rabaaye Abdurrahman wuxuu yiri markaan arkay hamigooda waxaan Abu Jahl waa kaas taga way galeen dagaalkii galeen laba seef ay wateen Abu Jahl oo dagaal ku jiray gadaal uu tageen waa giliyeen waana ka soo carareen labadooda nabiga u imaadeen sallallahu alayhi wasallam rasuul Allah Abu Jahl ana soo dilay ayaga ku faanaayo nabi sallallahu alayhi wasallam niyada ma ka jibinin wuxuu seefiya ku disheen aabe waa kana rasuul Allah seefahoodu fiiriyay labada dhiigu leeyahay labadiina buuyaa disheen ajirka waa qaadateen baxa gurigiina aad u nabi sallallahu alayhi wasallam ayagoo faraxsan ay laabteen oo dhaheen cadawga nabigan soo dilnay nabi sallallahu alayhi wasallam sharaftiisa ilaahay kor u qaaday oo ilaahay wuxuu yiri inna shaani'aka huwa al-abtar ninka aad wax ka sheegayo nin daba go'an waay oo ciqaaban oo aan liibaaneeninba
qaadi ciyaad wuxuu yiri nin caalima jiri jiray xilli qaadi ciyaad wuxuu yiri nabigu caan jiray nabigu jeesi jiray culimadii xilligaas joogtay waxay amar ku bixeen in la dilo waliba gaalnimo in loo dilo ma aha muslimnimo riddatan aa loo dilay markii la dilay geed baa lagu daldalay inuu dhinto awgeeda waxa la rabay asagoo qiblada u jeedo inuu dhinto ay rabeen qiblada markii loo soo jeediyo geedka wuu wareegana kaligiis geedka wuxuu u heelinayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkan gaalka ah inuu qiblada ku dhinto diidaa wuu wareegaa geedka way soo wareejinayaan way wareega iska da wareegintii ku dhintay ninkii asoo wuxuu dhintay qiblada ka sii jeedo u dhintay ka dhintay nin la yiraahdo Ka'b ibn Ashraf oo yahuudi ah nabiga dhibay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Ka'b ibn Ashraf yaa iga qabanaayo ilaahi ee rasuulkiisa ayuu dhibay Muhammad ibn Maslama wuxuu yiri rasuul Allah inaan dila ma rabtaa oo dhay yaa iga qabanaa in fahmi kariye ma soo dilaa haa dheh nabi sallallahu alayhi wasallam haa iga soo dil uu soo baxay nin Ka'b ibn Ashraf wuxuu ahaa nin khiyaano badan geesi ah taagtiig dagaal yaqaano aan la soo gali karin oo ahaa gurigiisana hub mana la soo gali karo farsamay hubku soo galiyeen oo ninkan ilma adeer ahaayeen saddex qof ee kale ku yimaadeen marka hore kaligiisu imaaday wuxuu dhahay saddex ku imaaday waxay dhaheen Ka'bow ninkii aan raacnay oo Muhammad ahaa baahiyo nagu dilay waa idin sheegay aniga maxaa u raacday ninkaas baahile waa idin dilayay marka hore idin sheegayba ee waxna si raashin deen si hubkeenan ku keensanayna hubkeena rahan ahaan u hayso waxay rabaan guri inay hub soo galiyaan waayo dha imaada habeen dambi imaada saddexdu hubay soo qaateen markuu soo degay xaaskiisa waxay tiri Ka'bow codkan ku wacaayo weeka shakiin iska joogtido mayo dhaan geesi ay cid wax qaadi karta male cambuur bereed uu soo gashtay uu fahmay cambuur bereed soo degay saxaabadii markay seefta ila aadeen bir le ku dhufteen ba jirkiisa dhan bir waay nin saxaabada kamid ah dhaabo ala meesha lagu dhaabacay dhibaato kadib Muhammad ibn Maslama aatoore soo baxsaday cambuur bereedku wuxuu ku eegyaa khaska korkiis khasku la raadsaday khasku ka dilay mindida meesha ku dilay saxaabiga Muhammad ibn Maslama nabiga markuu dhin sallallahu alayhi wasallam xilli dambe ayaa maalmaha kamid ah meel iskugu imaaday nin baa wuxuu yiri Ka'b ibn Ashraf waa la khiyaanay dilkiisa khiyaano ayuu ahaa fiiri marka meesha waxa ku jiro nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninkan khiyaanay ma aha saxaabadan khiyaanada raali uga ahaa Muawiya madaxweynaha Muhammad Maslami dilay meesha taagan yahay oo waayeel محمد سلام وحور معاوية النبي قال عينا أذن أنت ما تاجن تاي وده أو النبي كان سوكو عاي ما بفهم مية وده لين كان وحور كعب والله خياني عادي وده معاوية استداف محمد وحاس فتنة هنو أورين وياه وده معاوية ده سان تاي وده أنا أذيك هالمال مكون ولا أنكر نبأ لين كان يقول أنا أسجع أركتي أنا ده سويد هايسكي إلاليو مالنا جنازة السوق إمادي نكى وإلوبي محمد نواجهوبي باكور وتيو كبلابي لفوق جيجيبي أسجع ميلو وتجي لكن ما كده مبوفعنا ذي هل لفنا مبوفيوبين ماشي كنت نبيك أنو جو عيني ميا وده نك دلنا أني وانك أشيء قصده ده نبيك هو أمر عنيك نين كريستيان النبي صلى الله عليه وسلم عايحلي يقول الله محيري نبي محمد حمي يقانون الجاهل واي أنيق وحقول أمي ميريو كليو يقانا النبي صلى الله عليه وسلم محير نينكاس إله بريء عندنا أمدرين وحير إله نينكاس علامات ويل نينكي وود انتي كريستيان كي وي آسان مركي آسان وياج مركو بريء خبري أسوأ لجسوا بحيو بنانك يالي إمادين وهذا محمد عيدن كيسا وحن كدم بيو هلو عليو حقه هلا ديري دولكا ولا ديري ولا قليي أفر متر لو حري وياج مركو بريء بنانك يالي هذانه وهذا حلي عيدن بدن صوت هنا عن سير ديرين هذانه دولكا لجي دولكا عيل الله قضي وياج مركو بريء سو بنانك يالي لارج وهذا أرين أرين بني آدم سماكرة ما هي نكان برتي سكودافا saxaabiga hadalka warinay wuxuu dhahay ninkiyo waxa la arkay eeyaha markii kaadi soo qabtaan baqtigiisa iimaanayaan madaxiisa ku aadinayaan ku kaadinayaan ka tagayaan meesha ku uray walagu ka kaadinay nabi sallallahu alayhi wasallam ninkii sharafta ka qaad ilaa sharafta qaada isagan oo ceebaysto masar xilli dhow maxaa ka rabtaa xilli hore Ahmed Shaakir waa wadaad faqiih oo Masri ah
wuxuu yiri aabahayga waxaan u raaci jiray masjid oo khudbo lagu akhrinayo maxamed shaakir waa aabihiisa wuxuu dhahay ninka khudbada akhrin jiray nin wuxuu aftahana aad loo jecel yahay maalmaha kamid ah wuxuu dhahay meeshiya waxa imaadeen rag madax ah nin indhoolo oo wax barasho loo dirayay xafladiisii ay dhameeyeen khudbadii ay imaadeen ninkii khadiibka ahaa wuxuu rabay dadka madaxda meeshaan fadhiyaan ninka diray ninka indhoolaha ah inuu amaano markaasuu wuxuu yiri فما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى نينكا مدحدا markii ninka indhoolaha yimid wajigana muutubin mana ka jeesanin hool fiican uu qabtay dibaddu waxbarasho u diray dadkii khudbada iska dhageysteen waa ma fahamsana khudbada markay dhamaatay maxamed shaakir istaagay wuxuu yiri salaadiina wax ka jirta male nin gaal ah ku dawa tukateen salaada hadda la soo celinaa oo muxuu ku gaaloobay nabigu caay suu ku caay nabi sallallahu alayhi wasallam markii abdullah ibn mas'ud uu abdullah ibn maktum markuu u yimid indhoolaha ilaahi muxuu yiri abasa wa tawalla nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu la joogay rag madax ah oo abu jahl ay kamid yihiin wuxuu rabay inuu xoogo diinta u soo dhaweeyo ayagoo meel fiican maraayo ayuu abdullah soo galay indhoolaha ma ogo wax meesha fadhiyo wuxuu rasuul allah ilaahi wuxuu ku bari anna ibar nabiga xoogo waa isnacay wajigiisa xoogo waa tubay waa ka jeest ilaahi wuxuu yiri abasa wa tawalla nabi maxamed wajigiisu wareejiyo waa ninkii ka jeestay goormo jeestay an jaahu al-a'ma indhoolaha markuu imaaday nabi wala anaan sallallahu alayhi wasallam waxa la yiri nimankan gaalada ah maxay isku wareerinaysaa nin muslima ku yimid ma uu imaadid soo jeesatid nabi sallallahu alayhi wasallam abdullah markuu arko dadku uu ku arki jiray wuxuu dhigi jiray soo dhawow ninka dartiisa ilaahay ii canaantayo dartaada ilaahay ii canaantayo dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam marka meesha waxa ku jiro nabi sallallahu alayhi wasallam indhoolaha uu ka jeestay laakiin kan indhoolaha ma ka jeesanin ninkii farci dilow ka baxsay masaajidka horta meesha uu bugdhabi lahay Ahmed Shaakir wuxuu yiri waxaan soo gaaray ninkii masaajidkii laga jeclaan jiray oo khudbada ka akhrin jiray asagoo banaanka masaajidka fadhiyo oo kabaha loo dhiibanayo jaakadaha loo dhiibanayo nus shilin ruuc shilin la siinayo oo kabaha ilaalinayo salaadii iska dhaafay adduunka dulli ku noqday nabigu afka la galay meel aan la gali karin oo aaday nabi sallallahu alayhi wasallam aan soo gabagabeeno وحدان ما أنت النبي كشاكين مدالين صلى الله عليه وسلم لواتن بردان فدنا حتى النبي مسوق بنجبي كشاكي ديسا النبي صلى الله عليه وسلم كسر وراق دري كسر وراق دي وجوجوي النبي صلى الله عليه وسلم حوري وراق دي وجوجوي بخرتويس الله جوجوي أسجنه ويل كيسيا دلي أحرك كلاوري هرقل وراق دي النبي صلى الله عليه وسلم وسود وياي إلهي بخرتويس وبركيه إلهي سبحانه وتعالى قرآنك ما لفر بدن أنبياء أيها إلهي ويتوجن صالحا النبي إبراهيم عليه السلام أبو بدن وقرآنك إلهي وحكبريا وحوي النبي إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون إله ما أنت قيامه حقيقة دتك الدلسن نبي إبراهيم إلهي ويديستي لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوأ أن ويديسنين إلهي شيء إلهي محجري يوم لا يخزي الله النبي مالين أو إلهي نبي محمد أن دلينين ما ويديسنين والله شرف نبي إبراهيم عليه السلام مركي دبك اللي جوري ده محجري حسبي الله ونعم الوكيل إله أداء وفلا مشى يقبض بالي نبي محمد مويدي سنو إله محجري يا أيها النبي حسبك الله إلهك وفلا عليك نبي إبراهيم حكود عيستي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إله أني المهيجة أصنامنا عابدنا إلالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حال يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عد هذا أصنامنا عابدين أنا كوب لنقال نبي إبراهيم ويدستي نبي محمد نوال السي صلى الله عليه وسلم نبي موسى حكود عيستي رب اشرح لي صدري إله لا تهده إي واسعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ولا سياسة لا بتاع مكو واسع نمية عنك نو موسى محكود عيستي ويسر لي أمري إله أرميه يفض ذي إله نو محمد حكويري ونيسرك لليسرى أرنتن أوفضن كسيننا نو موسى عليه السلام حكود عيستي واحلل عقدة من لساني إله عرب كي علاس كقات محايل الدب واللقي مركو يرى
carabka wax ka gaarsiiyey nabi muuse calayhi salaam si fiican hadalka ma loo fahmi jirin markaas wuxuu dhihi jiray ilaahu carabkayga fududay si ila ii fahmo ilaahayna waxaan wuxuu ku yiri fa inma yassarnahu bilisanik anaga carabkaaga waa ku fududeynay nabi muuse calayhi salaam wuxuu ku duceystay wa'ajiltu rabbi ilayka litarda ilaahu waxaan kuugu imaaday inaan raali iga noqoto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa la yiri la'allaka tarda inta waxaan u sameeynaa adiga inaan raali noqoto laba sifo oo ilaahay uu leeyahay aan nabiga la siiyay quraanka dhexdiisa ilaahay quraanka muxuu yiri inna allaha bin-naasi la ra'uufun rahiim ilaahay dadka wuu naxariistaa wuuna u turaa nabi maxamedna waxa la yiri bil mu'miniina ra'uufun rahiim intaas inuu wafir nabi sallallahu alayhi wasallam intaas waxay ahaayeen saxaabada amaanti ka bixiyeen ilaahay gaalada laftirkooda say ku amaaneen dadkoodii kuwa hadda nijaasta meelahan joogaan oo jaahiliinta ah wax ma fahansana laakiin gaaladii wax fahansanaayeen siiri nabi say u amaaneen gaalo waaye ma islaamin kitaab waxa jiro the 100 la dhahayo boqolka qofood adduunka soo maray ee taariikhda reebay qofka uu horeeyay nabi maxamed ka dhigeen sallallahu alayhi wasallam waxay dhaheen marka fiiri ninkan gaalka kristaanka wuxuu dhahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ninka fiiriya taariikhdiisa wuxuu arkaa uu dhahay dhinac walbo inuu leeyahay taariikh fiican inuu ka leeyahay wuxuu yiri hadaa baarto وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اله انت نبي محمد عايسى اله عقوبتها الدنيا كتسي اله الدنيا كتسي اله انكم فرحنا نتسي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوة